weligaa maad isweydiisay sababta soomaalida jarmalka joogta xaaladooda ugu duwan tahay kuwa maraykanka kanada ingiriiska ama waddamada kale ku nool waxaan u malaynaya in 4 sababood ay jiraan fideogan dhammayso kow soomaali badan waxay yimaadeen xili adag waagaasna may jirin dad badan oo haga ama caawiya 2015 iyo wixii ka dambeeyey ayay soomaali badan iyo qaxooti kale yimaadeen waddanka jarmalka soomaalidii hore waddanka jarmalka hore u joogayna way yaraayeen marka may jirin dad badan oo dadka cusub tusi kara sida waddanka jarmalka u shaqeeyo sidaas darteed dad badan iyagaa isbaray sida waddankani u shaqeeyo taasina wakhti badan ayay ku qaadatay laba waa inaad sistamka nidaamka iyo dhaqanka jarmalka aad baratid balamaha waraaqaha wakhtiyada dowladda sharciga boosta waxbarashada wax walba nidaam gooni ayuu jarmalka ku leeyahay dhaqanka soomaalida iyo dhaqanka jarmalkana aad bay kula duwan yihiin markaad waddanka ku cusub tahay waxaasoo dhan inaad hal mar wada baratid aad bay u adag tahay wakhti ayay kugu qaadanaysaa saddex culays dhinac walba kaaga imanaya qofka markuu jarmalka imaado wuxuu rajaynayaa ama wuxuu rabaa inay si dhaqsaa hore u socdo laakiin waxaa sugayaa luqadda jarmalka oo adag sharciga oo wakhti badan ku qaadanay karta ilaa intuu heliyo shaqada oo bilowga dadka xitaa badanaa loo diido waxaa intaas dheer mararka qaarkood waddankii ayaa xitaa wax laga sugayaa waxaasoo dhani saamayn bay qofkii ku yeelanay kartaa maskaxdiisa iyo niyaddiisa afar waddanka jarmalka wuu ka duwan yahay waddamo badan oo kale oo soomaaliya ay ku nool yihiin jarmalku waa sozialstaat waxaa laga wadaa dhinac waxaad ka haysataa caafimaad ammaan iyo taageero badan dhinaca kalena waxaa jira sharciyo waraaqo cashuur iyo sosiaal abgaaban badan taasina waxay keenaysaa inay adag tahay sida loo sameeyo horumar degdega ama dhaqaalo badan markaa jarmalka lama odhan karo waddamada kale inuu ku xun yahay ama inuu ka fiican yahay waxa laakiin la odhan karaa inuu waddamada kale ka duwan yahay waxaa laakiin jira soomaali badan oo jarmalka xitaa meel fiican ka gaaray oo social media aan lagu aragba dadkaasina ixtiraam gaara ayay mudan yihiin sababtoo ah jarmalka maaha waddan horumar si fudud lagu gaaro ugu dambayn hal talo 7 ilaa 8 sano ayaan ku dhex jiray soomaalida jarmalka ku nool dadkan aniguna arkay horumarka ugu badan sameeyeyna hal bay ka wada sameyn yihiin taasina waa luqadda jarmalka ayay barteen hal sano jarmalka joog ama 10 sano wakhtigii ku dhaafay wuu ku dhaafay waxa muhiima oo keliya waa inaad maanta bilowdid oo aanad joojin ilaa intaad gaadhid heerkii aad rabtay